kusoo dhawaada walaalaha ku xiran channelka khibrad maal muuqaal kale iyo maalin kale cusub. maanta waxaan idiin wadaa qiso ka duwan kuwii hore, waxayna ku socotaa qisadani adiga. hadda waa adigaagan hadda i daawanayee. dhamayso muuqaalka ilaa inta aynu ka gaadhayno gebagabada qisada. waxayna ku bilaabmaysaa qisadu sida tan. waxaa jiray nin kalluumaysta ah kaasoo daacad u ahaa shaqadiisa, kaasoo maalin walba kalluun soo qabsan jiray gurigiisana keeni jiray, iyadoo marka uu intii Ilaahay u qoray ay isticmaalaana uu mid kaleetana soo daban jiray. dabeed maalin maalmaha ka mida wuxuu aaday xeebta si uu kalluun kale u soo qabsado. dabeed iyadoo ay xaaskiisu jarjaraysa kalluunkii uu ninkeedu soo qabtay ayaa waxay aragtay wax la yaab leh. waxayna ku aragtay caloosha kalluunkaas luul. waxayna u yeedhay ninkeedii, waxayna ku tidhi, ninkayga, eeg waxa aan helay. wuxuuna ku yidhi, waa maxay? waxayna ku tidhi, waa luul. dabeed ninkii ayaa qaaday luulkii, dabeed wuxuuna u geeyey nin luul ka iibsada oo deriskiisa ahaa. deriska ninkii kalluumaystaha ahaa ayaa eegay luulkii, wuxuuna ku yidhi, maya ma iibsan karo sababtoo ah qiimaheeda ma goyn karo, laakiin u tag ganacsadaha weyn ee magaalada deriskeenna ah, isagaa laga yaabaa inuu iibsan karee. ninkii saaxiibkeena kalluumaystaha ahaa wuxuu qaatay luulkii, wuxuuna u geeyey ganacsadihii weynaa ee magaalada deriskiisa ah joogay. wuxuuna u soo sheegay arrintuu ugu yimi, uuna soo bandhigay luulkii. wuxuuna ninkii ugu jawaabay, ilaah baan ku dhaartay walaalkayow, hantidan aad haysato qiimo lagu qiyaasi karaa ma jirto, oo yacni anigu qiimaheeda ma goyn karo, balse waxaan ku hayaa xal. u tag badhasaabka ama guddoomiyaha magaalada, isagaa awooda inuu iibsado luulka noocaas ah. dabeed ninkii wuxuu aaday qasrigii guddoomiyaha, wuxuuna ninkii saaxiibkeen istaagay albaabkii qasriga isagoo sita hantidiisii qaaliga ahayd, isagoo sugaya ogolaanshaha inuu gudaha u galo qasriga guddoomiyaha. markii guddoomiyuhu arkayna wuxuu yidhi, luulka noocaas ah waa kii aan raadinayay. ma aqaan waxaan kugu qiyaaso qiimaheeda, laakiin waxaan ku ogolaan doonaa inaad gasho khasnadayda khaaska ah. waxaadna ku jiri doontaa 6 saacadood, waxaad rabtana ka qaado, waana qiimaha luulka midhaasi. ninkii malay dabatada ahaa ayaa ku yidhi, mudane waxaad iiga dhigtaa 2 saacadood. 6 saacadood aad ayaa ay ugu badan tahay nin sideedoo kale ah. guddoomiyihii ayaana ku yidhi, may, waa inaad 6 saacadood aad ku jirtaa khasnadayda, aadna ka qaadataa khasnada waxaad rabto. ninkii saaxiibkeen wuxuu galay khasnadii guddoomiyaha, wuxuuna arkay muuqaal aad u la yaab badan. wuxuuna arkay qol aad u weyn oo u qaybsan 3 qaybood. qayb waxaa ka buuxay jawharado, dahab iyo macdano kaloo qaaliya. qaybna waxaa taalay sariir raaxa leh oo marka uu saa u eegaba ay hurdo qabanayso. qaybna waxaa yaalay dhammaan noocyada kala duwan ee cuntooyinka iyo cabitaanada ay naftu jeceshahay. intaa kadib ninkii malay dabatada ahaa ayaa isagoo naftiisa la hadlaya wuxuu yidhi, 6 saacadood aad bay ugu badan tahay nin sideedoo kale ah oo xaalkiisuna uu hooseeyo. haye maxaan sameeyaa 6 saacadood gudahood? wuxuuna go'aan ku gaadhay inuu marka hore ku bilaabo qaybta 3aad ee cuntada. wuxuuna ka dhigay cuntadii iyo cabitaankii, isagoo naftiisa ugu sheekaynaya si uu tamar badan u sii qaato, si ay ugu suurto gashay inuu urursado dahab aad u badan. waxayna ku qaadatay 2 saacadood. intaa markii uu dhammaystay wuxuu aaday qaybtii 1aad. intii uu sii socdayna wuxuu arkay sariirtii taalay qaybta 2aad. wuxuuna naftiisa ugu sheekeeyey, mar haddii uu soo dhergay, maxaa uu diidaya inuu sariirtaas ku sii seexdo si uu u helo tamar u suurtagelinaysa inuu inta uu awoodo uu sii urursado ee dahaba. wuxuuna naftiisa ku qanciyay inay tahay fursad aan mar labaad soo mari doonin. wuuna seexday, wuxuuna galay hurdo aad u dheer. dabeed muddo kadib wuxuu maqlay qof ku leh, kac ugaadhsaday yahow doqonkaa, wuu dhammaaday waqtigaagiiye. wuuna ku naxay, wuxuuna ku yidhi, weli waxba ma qaadan? misay ugu jawaabeen, haa ee inoo saar debadda. misuu haddana ku yidhi, maan helin waqti igu filan. dabeed misay ugu jawaabeen,
6 saacadood ayaad ku jirtay khasnadan ma haddaad ka toostay qafladii iyo mooganaantii aad ku jirtay ma waxaad rabtaa inaad wax kale sii kororsato miyaanay ahayn inaad urursato waxa meesha alaab qaaliya yaala si aad dibadda ugu baxdo aadna ku iibsato cuntada nooca ugu wacan aadna ku iibsato furaashada nooca ugu wanaagsan balse waxaad tahay nacas moogan ah oo aan ka fikirayn waxa ku hareeraysan mooyee wax kale qisadii way dhamaatay laakiin dulucda iyo ujeedku wuxuu yahay luulka waxaa looga jeedaa waa naftaada waana hanti aan wax la qiimo ahi jirin khasradaasina waa adduunka weynideeda ay nagu weyn tahay iyo sidaynu ugu mashquulsannahay macdanaha qaaliga ahna waa acmaasho wanaagsan sariirta hurdada macaanina waa qaflada ama mooganaanta cuntada iyo cabitaankuna waa shahawaadka iyo waxay naftu jeceshahay ninka kalluumaystaha ahayna waa adiga haddaba adigaagan qisada dhegaysanayee miyaanay ahayn oo aan la gaadhin waqtigii aad ka toosi lahayd hurdada aadna ka tegi lahayd sariirta hurdada macaan oo aad ku urursan lahayd dahabka iyo macdanaha kale qaaliga gacmahaaga ka hor intaysan dhicin muddadii lagu cayimay oo cimrigaaga ah intaas ayayna ku eg tahay qisadeenna maantu